Dowladda Uganda ayaa cunaqabateyn saartay suuqyada lagu iibiyo hilibka kadib markii uu dillaacay cudur khatar ah. Haddaba, si aad u ogaato daawade, sii sheer garee muuqaalkan lana sii wadaag saaxiibadaada kuugu dhow. Laagtana ha naga hilmaamin. Anthrax waa cudur faafa oo halis ah oo ay keento bakteeriyada loo yaqaano Bacillus anthracis ayaa ka dillaacay degmada Kyotera ee waddanka Uganda. Maamulka ayaa xiray suuqyada lagu iibiyo hilibka iyagoo sheegay in cudurka anthrax ay ka qaadeen hilibka lo'da. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay inay dhinteen 17 qofood, 20 kalena ay sariir u jiifaan cudurkani. Bakteeriyada kudka ayaa markii ugu horeysay la sheegay sanadkii 1823, waana bakteeriyadii ugu horeysay ee abid la muujiyo inay sababto cudur sanadkii 1876. Robert Koch wuxuu ka salgaaray anthrax